بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa inaan maanta halkan ka sheegno warmurtiyeed ka soo baxay shirkii ay maanta iskugu yimaadeen madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Axmed Karaash iyo madaxweynihii hore mudane Cabdiweli Axmed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa hore mudane Camey shirkaas oo la isku yeeray golaha xukuumadda waxaan looga hadlayay loogana hadlay qodobo ay ka mid yihiin in madaxweynuhu sheegay Saciid Cabdullaahi la faray loo sheegay dhammaan laamaha dawladda meel ay joogaanba inay si degdeg ah ugu noqdaan shaqooyinkooda qaranka isla markaana ay u falgalaan shaqadii ay dalka u hayeen waxa kale oo madaxweynuhu u sheegay iyo golaha xukuumadda iyo madaxweynayaasha horeba in amniga guud ee dalka la ilaaliyo isla markaana laga hortago wax kasta oo hoos u dhac amniga Puntland keeni kara lana ilaaliyo qaangaarnimada iyo jiritaanka Puntland waxa kale oo laga hadlay in dhammaan gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka agaasimayaasha guud shaqaalaha dhammaan hay'adaha dawladda oo dhan ay ku noqdaan shaqadoodii si loo dardargeliyo shaqada ummadda loo hayay waxa kale oo laga hadlay loona sheegay shacabka in aan laga faa'iideysan Puntland waqtiga kala guurka ah ay hadda ay ku jirto oo ah inay ilaashadaan dawladnimadooda dalkooda iyo jiritaankooda kana hortagaan wax kasta oo dib u dhac u keeni kara waqtiga yar ee kala guurka ah waxa kale oo goluhu u sheegeen hambalyo guud madaxweynuhu iyo shacabkiisuba golayaashiisuba in shacabka Puntland ay ugu hambalyeeyaan isbedelkaas hanqaadka ah ee 20 sano kadib Puntland ka curtay inuu noqon doono tilmaan iyo higaal ummadda Soomaaliyeed aan hormuud ugu nahay saas awgeed laga feejignaado wax kasta oo keeni kara in sawirka Puntland la fool xumeeyo arrimahaas ugu muhiimsan arrimaha maanta laga hadlay waxaan rabaa waxa iga dambeynaya wasiirka warfaafinta muhiimadu maanta waxay ahayd koow madaxweynuhu inuu la hadlo golaha xukuumadda una sheego shaqadii qaranka inay wadaan inuu u sheego dhammaan gobolada iyo degmooyinka inay shaqadii qaranka wadaan inuu u sheego laamaha amnigu inay hawl galaan inuu u sheego shacabka Puntland inay ilaashadaan dawladnimadooda in ay dhamaatay waqtigii kala qaybsanaanta kala aragtidoonaanta iyo campaign-ka ee loo gudbay wada jirka wada socodka iyo shaqada qaranka intaas ugu muhiimsanayd waxaan iga dambeynay wasiirka dhammaan dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa madaxweynihii hore iyo ku-xigeenkiisa golaha wasiirada ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sama jacaylka wasiirka ayaa sheegay qodobada ugu muhiimsan oo ka soo baxay shirkii ay isugu yimaadeen golaha wasiirada madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigeenka hore iyo madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka baalkii cusub arinta waxa laga hadlay sidii loo dardargelin lahaa midnimada Puntland maadaama doorasho la galay musharaxiin badan ay jidhay meel kasta arinta caga dhigatay waxa Puntland soo baxay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baa soo baxay maanta Puntland madaxweyne ku-xigeena taariikh soo jidhay oo soo taxnayd beeraha Puntland inay 4-5 madaxweyne isu bedesho si dastuuriyana ay isugu bedesho mar walbana cid timaada cid kale in la shaqeyso dadkii sharaxayay ama dadkii campaignerka ahaa ama cidii siyaasadda ku jidhay ama cid kasto Puntland arintaas way dhamaatay Puntland maanta waxay leedahay madaxweyne cusub madaxweyne ku-xigeen cusub kulii wasiirada oo wali xafiisyadii jooga oo sugaya xilligii madaxweynuhu soo magacaabi lahaa wasiiro kale ama iyaga qaar ka soo noqdo ama wasiiro cusub hala wada keeneen laakiin ummadda reer Puntland waxa laga doonayaa cid walba inay dalkeeda u shaqeyso ummadeeda u shaqeyso horumarkeeda u shaqeyso xilli kasto doorasho ay dhacdo ama xilli kasto lagu jiro doorasho dad baa waxay ka shaqeeyaan Puntland khalkhalkeeda ka shaqeeya dad baa dib u dhaceeda ka shaqeeya marka waxaan ciidamada amniga ee muwaadiniinta ah هذه يجر قرحة وتاجن دفاع Puntland إنه دفاع هذا السيد وساعدكستان محان كل شيء تدوينا رير Puntland هي حفيزتنا عدول بالمانتا عمر بمدحوينه كبحي نول بحفيز كيسين ودبوا وناخذ الشغل السنة ودبوا هذا إلهي واحد كله لك الوريقة يسيد مدحوينه كحرينك وسير هذه لا صومر وسير هذا مركب وسير هذا كالحل كله وريقة لكن هذا كله دولي جاي وعوي يقفك الشغل الزايستا أما قفك الشغل الزايستا دوان المواد وشغيرية دولة ترى كمان دعين منه ودعان وعوي
wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka weeye oo iyagana laga yaabo wasiirada laftigoodu qaar badan inay soo laabtaan haddii ilaahaydan ka dhigo marka waxa isbedel baa dhacay waxyaalahaas oo dhan waxaa la rabaa in dadka aan waxba garanayn inaan lagu khalkhalgelin ciidamada si gaara waxaan uga codsanayaa oo ciidamada Puntland oo muwaadiniinta iyo kuwa iyagu laftigooda u soo gurmaday xoreynta gobolka Sool iyo meelaha maarta cadowga u haysto inay meesha ay hawsha ka hore uga wadaan ay hore uga sii wadaan dadka reer Puntland ay gacmaha isqabsadaan wixii horena habeen iyo waa cusub aynu ka dhigano si aynu taariikhdeena ay hore u ahay aad iyo aad baa waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo maarta ka soo shaqeysa arintan iyo cid kasta oo horsocodka ka shaqeynaysa cid kasta oo dhibaato ka shaqeynaysana waxa la rabaa reer Puntland hal inay ku fiiriyaan cid kasta oo maarta khalkhal inay wax gelisana hal inay ku fiiriyaan aad iyo aad baan ugu kalsoonahay dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan inay mar walba ay isku duuban yihiin inay mar walba midnimada ka shaqeynayaan inay mar walba cid kasta oo timaada oo sharci ku timaada inay la shaqeynayaan aad iyo aad baan ugu kalsoonahay annaguna waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii inaanu maartay madaxda dambe la soo dooranayeen aanu soo dhaweyno intaan hadda xilka sii joognana aanu sidii aan hore ugu shaqeynayno dalka ugu shaqeyno cid walbana saas aan ku codsanaynaa aad iyo aad baan u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh